maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kaasi oo Muqdisho ku dilay wiil arday ahaa 26 July sanadkan ayuu dabli booliis Baasha Mustafa Cumar Dhaqane ku dilay Allah u naxariistay marxuum Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud oo ahaa arday dhiganaya iskuul ayaa marayay meel aan ka fogeyn ceelgaabta xilli fiid hore ah waxaana dilka u geystay dabli booliis Baasha Mustafa Cumar Dhaqane oo ay sheegeen marqaatiyaal la socday marxuumka in uu u soo isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya askarigan dilka geystay. isla xilliga uu geystay dilka ayay ciidamada amniga xireen waxa uu saldhigga booliiska degmada Xamar Jajab ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta oo ah goobta laga dhaqaajiyo galdacwadeedka. maalin kadib ayay garsoorayaasha u direen xabsiga dhexe eedeysanaha garsuga ahaan 19 bishii tagtay ayay codsadeen xafiiska xeer ilaalinta in la mudeeyo dhageysiga dacwadda Baasha Mustafa Cumar Dhaqane 26 bishii 8 ayaa balamisay maxkamadda darajada koowaad dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Baasha Mustafa Cumar Dhaqane. xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda horkeentay laba marqaati baarihii kiiska sawirka marxuumka warqadda cadeynta dhimashada ee dhakhtarka iyo waliba qorigii uu dilka ku geystay oo noociisu ahaa AK47. marqaatiyaasha maxkamadda hortaagnaa oo laba ahaa ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in askariga dilka geystay uu u muuqday mid isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya waxaana sidoo kale midkooda uu sheegay in marxuum Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud uu ku dhawaaqay ha idilin waxaana nolosha ka leeyahay hami sare balse nasiib xumo uu toogtay Baasha Mustafa Cumar Dhaqane. laba xidigle Ismaaciil Salaad Maxamed oo ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dooday in eedeysanaha maxkamadda hortaagan uu ku xadgudbay sharafta ciidanka iyo ilaalinta muwaadinka waxa uu codsaday maxkamadda in lagu xukumo dil toogasho. qareenada u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto maadaama uu ahaa qof aan mirkiisa joogin. ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ka soo saartay go'aan cad ah waxa ayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo qisaastii marxuumka Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud sida uu sheegayo gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuuto oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. hay'adda maxkamadda ayaa sheegtay in uu racfaan uu ka qaadan doono xukun sugahani. Cabdifataax Muumin Ilkacse raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.